gudoomiye ku-xigeenka guud ee jaamacadaha New Generation ayaa habeenkii xalay ahayd la wadaagay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer mowduuc ku saabsan sida uu shaqeeyo caalamku iyo doorka kaga aadan bulshada ku dhaqan Somaliland. kulankan oo ka qabsoomay hoolka Haas Hotel ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay badi bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan ardayda jaamacadaha gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale. waxa ugu horeyn munaasabadaasi daafuray gudoomiyaha jaamacadda New Generation faraceeda Burco Maxamuud Maxamed Axmed Saad iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyagoona taabtay ahmiyadda uu mowduucani leeyahay iyo sida haatan loogu baahan yahay. insha Allah jaamacadda New Generation xalinta problemiska waxbarasho ee Somaliland waxay diyaarisaa soo saartaa daayar Somaliland darisa akhlaaqiyadka waxbarashadoodu u dhisan yahay. guud ahaan jaamacaddu waxay diyaar u tahay sida ka muuqata ciwaankaasi inay daayarta Somaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ay ku soo celiso social retain ay ku soo celiso oo ah inay bulshadeeda u faa'iideyso aqoon aanu filayna inay wax badan ka bedeli doonto dadka iyo dalka jamhuuriyadda Somaliland. in aqoonyahanku isu yimaado isweydiiyo su'aalo kala faa'iideysto isku kordhiyo aqoon isku kordhiyo waa arrin muhiim ah loo baahnaa. jaamacadda New Generation fikirka ay keentay waa fikir aad u fiican oo runtii loo baahnaa. Professor Mustafa Maxamuud Cabdillaahi Al-Khaliili ayaa mowduuciisa ku bilaabay kacdoonkii kala duwanaa iyo xadaaradihii kala dambeeyay ee soo wajahay caalamka isagoona intaasi raaciyay doorka uu Afrikaanku ku lahaa xeerarka caalamiga ah iyo qodobo kale. and doodani waxa weeyaan systemkan adduunku sidee buu u shaqeeyaa for according to wisdom fikirka iyo afkaarta iyo taariikhyada reer galbeedku say qoreen amba say jeedinayaan. dadku waxay ahaayeen dad communism macnaheeda ah oo macnaheedu ay ahaayeen dad nolol maalmeedkooda soo rita waxbay soo ugaarsanayeen waxay wadeen waa wax nafku ilaalisay ahayd wax ka baxsan ma haysan waxa deedna yimid wixii loo oran jiray in dadku markaa kala sarreyn may lahayn manay kala sarreyn wuxuu kala sarreyntu bilaabmay markii chief damiska iyo king damiska iyo waxyaabahaas oo ay bilaabmeen ee dadka cuqaal iyo salaadiin iyo boqortooyooyin la sameystay ee inna ay noqotay intii dadka maamuleysay inna ay noqotay dadkii la maamulayay waa markii markaa problemka ugu horeeyay uu bilaabmay weeyaan waa markii la arkay in reerihii waqtiyadoodii dheeraadeen qofba qof uu sii dhiibay ummadii markaa way ka gadooday niman ganacsadaha baa deedna systemka feudal systemka loo oran jiray way ka tuureen oo waxa yimid nimanka la yaqaan ilaa imika caalamka adduunka ku haysta awood loo yaqaan capitalismkaas ama ka yimid capitalismkaas waxay noqotay in group ganacsadihii awoodii dalka iyo taladii caalamka ay gacanta ku qabtaan ilaa imikadana ay ku hayaan. and asaastaanka isagana dhibaatooyin fara badan baa yimid ilaa imikada waa lagu kala awood sareeyaa oo systemka caalamku imikadan laftigeeda dhinac buu u janjeeraa cid baa hagta laakiin cidaas in la challenge gareeyo ayaa muhiim ah in la challenge gareeyo aqoonteeda lagu judge gareeyo aynu u fikirno inaynu Afrikaan nahay oo aynu westerners ka aynu la aqoon noqon karno oo aynu challenge gareyn karno ayaa muhiim ah. waxa dhammaan sharci yaala United Nations ka hal declaration bay Afrikaanku ku leeyahay kulli bi imagine 1993 Vienna Convention ayaa la soo saaray wixii la oran jiray in la inaga bedesho wixii la oran jiray culturalismka in dhaqanka iyo qiyamka iyo diinta ay lahaynba meesha laga saaro deedna la yiraahdo waxa loo yaqaan human rights oo qodobo badan iyo article badan oo sharxi doona xagga dambe aan ku sharxi doona ay ka soo horjeedaan diinta islaamka. kadibna markaas Allahumma salli ala Muhammad la inaga bedeshay in dawladda 20 by 20 wax la yiraahdo ayaa la inaga bedesho ay dawladana la siiyo capacitating or giving a project related with the development. Allahumma salli ummadda civil society organizations ka oo Marshall Plan kadib sameysana la siiyo 20%. xubnihii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa ka falceliyay mowduucaasi iyagoona su'aalo ku saabsan caalamka iyo dalkaba ka weydiiyay professorka ayaa isagu su'aalahaasi mid uga jawaabay. Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.